السلام عليكم. فيديوغان waxaynu kaga hadli doonaa afar qof oo ku xadgudbay Allah subhanahu wa ta'ala iyo waxa abaalmarintooda ay noqotay. 1. Tancredo Neves, madaxweynihii Brazil. intii la waday tirinta codadka isaga oo sita mid ka mid ah sanduuqyada codbixinta ayuu yidhi haddaan helo 500,000 oo cod xitaa ilaahay igama hor istaagi karo inaan madaxweyne noqdo. wuu ku guulaystay doorashadii iyo codadkii uu rabayna wuu helay, balse ka hor intaan lagu dhawaaqin doorashada waxaa ku dhacay xanuun wuuna u geeriyooday. 2. ninkii sameeyey markabkii Titanic maruu wariyuhu weydiinayay markabka weynaantiisa iyo badqabkiisa waxa uu ugu jawaabay xitaa ilaahay baan awoodin inuu rido. 2 saacadood gudahood markuu dhaqaaqay markabku ayuu jiray buur baraf ah waxaana ku dhintay in ka badan 1,200 oo qof. 3. boqorkii kibirka badnaa ee Namruud. sida caanka ah waxaa lagu tilmaamaa Namruud inuu lahaa waxyaalo u gaar ah, wuxuuna ka mid ahaa 4 boqor ee adduunka soo maray ee lagu xuso Quraanka, wuxuuna ka mid ahaa boqorada gaalada, waana boqorkii ugu horeeyay madaxiisa la saaro taajka, wuxuuna ahaa kibraani isweynaysiiya ilaa uu markii dambe sheegtay ilaahnimo. waxaana jirtay qiso dhex martay isaga iyo Nebi Ibraahim calayhi salaam. waxay ahaayeen dadkii uu xukumi jiray kuwa baxa una taga isaga kana soo qaadan jiray cunto iyo waxa kale ay u baahan yihiin. maalin maalmaha ka mid ah ayuu soo baxay Sayyidina Ibraahim calayhi salaam si uu uga soo qaato cunto. waxauna ahaa boqorku mid kibirsan oo dadka weydiiya waa kuma ilaahiinu, waxayna odhan jireen waa adiga. markii uu soo gaaray Nebi Ibraahim ayuu su'aashii weydiiyey waa kuma rabbiga. wuxuu ugu jawaabay rabbigay waa ka wax dila waxna nooleeya. wuxuu yidhi waa aniga ka wax nooleeya waxna dila. Nebi Ibraahim calayhi salaam ayaa haddana ugu jawaabay rabbigay waa ka keena qoraxda mashriq cadceed ka soo baxa, bal adigu haddaad awoodo bal car ka keen qoraxda maqrib cadceed ka dhaca. markaasii la yaabin kuwii gaaloobay wuuna u diiday cuntadii waxna ma uusan siin. waxaa ku sii siyaaday kufrigii iyo caasinimadii, wuxuuna diyaarsaday ciidan badan si uu u laayo muslimiinta. wuxuu Allah subhanahu wa ta'ala u soo diray ciidan kanaaca wuxuuna daboolay iftiinkii qoraxda waxayna cuntay jirkoodii iyo lafahoodiiba. mid ka mid ah ayaa sanka ka gashay boqorkii kibirka badnaa ee Namruud, taasoo ku sababtay inuu dareemo xanuun aad u daran kamay soo bixin ilaa inta uu ka dhimanayay. darteed waxa uu ahaa mid madaxiisa ku garaaci jiray mandaraqiyo si uu xanuunku uga yaraado. 4. qoomkii reer Sumuud. wuxuu Allah subhanahu wa ta'ala u soo diray qoomkan Nabi Saalix calayhi salaam si uu ugu yeero diinta una caabudaan Allah subhanahu wa ta'ala keligii, ugana tagaan qurunkan iyo asnaamta ay caabudayaan. markay dhageysteen dacwadiisii in badan oo ka mid ah ayaa ku gacan seeray, waxayna ka dileen hashuu Allah subhanahu wa ta'ala u soo diray si ay ugu noqoto iyaga aayad. wuxuuna u sheegay in cadaab iman doono 3 cisho ka bacdi. maalintii saddexaad waxaa timid dabeel xagga cirka ah wayna dhinteen dhammaantood, qofna kama uusan hadhin.